السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada saaxiibayaal video waxaan idin tusi doonaa sida loo sameeyo design modern carve light in Photoshop. Marka waxaan sameyn doonaa insha Allah waxaan sameyn doonaa sawirkan oo kale designkan oo kale sameyn doonaa hadii Ilaahay ka noqdo. Marka midkan hadda sameey symbol waaye. Marka waxaan idin tuso marka hore waxaad soo dooranaysaa filter kadib waxaad dooranaysaa halkan new qoran tahay tag kadib A4 caadi ah soo dooro A4 soo dooro kadibna okay soo dheh A4 markaad soo dooratid halahan aad sameysid waxaad sameynaysaa second talaabada xigta aad qaadayna waxaa waaye waxaan rabnaa meeshan in yani colorka meeshan ku jiro u jeedid colorka meeshan ku jiro buluugan inaan gelino halkan aan kusoo darno saas darteed marka aan u sameyno waxaan dooranaynaa new layer aan dooranaynaa new layer markaan dhahno kadib waxaan imaanaynaa halkan colorka kaarta aad dooro kadib waxaad tagaysaa brush tool dooro brush tool markaad dooratid haddii waxaa laga yaabaa mararka qaar saan uu kaa yahay haddii oo saan kaa yahay waxaa waaye cap loggaaga daaran cap log iska xir kadib meesha rabtid marka inaad coloraysid kale ku dheh kadib intaan rabnaa intaan markaan sameyno kadib waxaan sameynaynaa marka waxaan tagaynaa halkan ku qoran tahay halkan ayaan ka bedelaynaa kadib marka waxaan rabnaa colorkaas inaan ku deysano midkan markaan ku deysano kadib waxaan sameynaynaa marka sawirkii aan soo gashan doonaa sawirkii halkan uu yaala sawirka markaan soo gashto waa kan sawirkan waaye symbol marka halkan aan keeni doonaa halkan markaa keeno ujeedaa sawirka aad u yaryar xoogaa yar waa soo yara weyneynaa okay waxyar oo ku daraa centerkan keeno marka intaas sawirka aan ka rabaa intaas marka uu noqdo aan fiiriyo marka okay hadda okay waaye kadib waxaan rabaa marka inaan qoraalka hadda aan ku qornaa meeshan inaan soo geliyo waxaan soo gelin doonaa qoraal caadi ah kadib meeshan waxaan ku qori doonaa new car waxaan qori doonaa new car intaas markaan waa weyneyn doonaa qoraalkayga markaa weyneeyo centerkan keeni doonaa centerka markaa keeno wax yar aan ku daraa waa yaryahay weli okay marka waxaan bedelaa fontiga nooceeda bedelaa waxaan ka dhigan doonaa mid xoogaa buuran midaan oo kale ku deysanaa okay weli midaan ma anficin mid kale aan ku qalday waxaan rabaa intaan ku qoran doonaa okay fontiga aan rabaa iyadoo bold leh okay midaan rabay kadib markaan fontiga aan soo doorto kadib waxaan rabaa fontiga waxaan u bedeli doonaa shape aan u bedeli doonaa si qoraalkan ilaa hoos aan soo gaarsiino kadib halkan imow kadib waxaa dhahdaa convert to the shape u bedel kadib shape markaa u bedeshid halkan imow hadda shape waa loo bedelay ujeedaa colorka waxaa kaga bedeli kartaa siyaabo kala gedis u bedeli kartaa nooca colorka arta sii kartaa marka waxaan rabaa marka inay sidaas iska ahaato kadib waxaan imaan doonaa halkan waxaan kasoo dooran doonaa direct selection tool aan kasoo dooran doonaa kadib markaan kasoo doorto qeybaha hoose aan rabaa marka inaan soo jiido keliya qaybta kore sida iska ahaato kadib marka waxaad sameyn kartaa waa soo jiidi kartaa oo ilaa hoos aa keeni kartaa ama soo wada qaban kartaa waa soo jiidi kartaa ilaa hoos aa keeni kartaa waa soo jiidi kartaa adoo shift haayo ayaa soo jiidi kartaa hal mar amba caadi aa soo jiidi kartaa intaa markaa sameeyo ujeedaa qoraalka ilaa hoos soo gaari laakiin waa kasoo horeeyaa gaariga iyo qoraalka soo horeeyo kadib waxaad sameyn kartaa gaariga kor geyn kartaa oo layer qaybta layerska imaanaysa gaariga qaybta kor geynaysaa hadda ujeedaa marka waxaan rabnaa xitaa colorkaas gadaal jiro inaan kasoo hormarsiino gaariga aan kasoo hormarsiino qoraalka hadda ujeedaa marka qoraalkeena waa isbedelay qaybtan qoraalkeena wuxuu ka noqday black sababtoo ah waxaan ku sameynay qaybtan aan ka sameynay oo wax ka bedelinay marka sidiisa hore aan ku daynaynaa inuu buluug noo ahaado okay marka intaas markaan sameyno hadda designka wuu sameysan yahay kadibna wixii information yar ah
halkan aad ku qoraysaa information yare halkaas aad ku qoraysaa aan yareeyo fartaan qoraal badan meeshan ku jiro okay kadib centerkan iska dhig kadib very simple intaas waaye waa sawirka aan sameynay waa midka hadda aan sameynayna waa kan marka qaabkaas loo sameeyaa Photoshop mar walba waa simple yani kaliya waxa u baahan tahay inaad tuulasha qaabka u shaqeynayaan aad fahantid kadibna waxa waaye every design ama wax kasta kugu soo dhaco waa sameyn kartaa aad u mahadsantihiin janaalka subscribe gareeya. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.